anxiety walaac. barnaamijkan waxa aan kaga hadli doonaa mawduuca walaaca inagoo isdul taagi doona su'aalahan soo socda. waa maxay walaacu? maxaase keena? goormo ayuu noqdaa cillad ka hor istaagi karta habsami socodka noloshaada caadiga ah? saamaynta taban ee uu walaacu ku yeesho nolosha qofka dhinaca bulsho, jireed iyo nafsadeedba. qaababka togan ee aad u maamuli karto walaaca iyo sidii aad ula noolaan kari lahayd. walaacu waa xaaladda caadifadeed ee uu qofku galo kadib marka uu la kulmo xaalad stress ah ama diiqad ah, ama haddii aan si kale kugu dhigo, waa jawaab celinta dabiiciga ah ee uu jidhku sameeyo marka uu la kulmo marxalad diiqad ah. waxaanina waa wax iska caadi ah oo qaybaha nolosha bini'aadamka ka mid ah. waxyaalaha qofka ku sababa inuu galo walaac waxaa ka mid ah sida isbeddel jireed oo uu qofku galo, mid deegaan oo uu la kulmo, iyo mid khibradeed oo uu qofku galo. tusaale ahaan bal aynu soo qaadanno isbeddelka jireed ee uu qofku galo ee sida ay walaaca ugu keento. bal aynu yaro malicsanno isbeddelka qaangaadhnimo ee uu qofku galo iyo waxa uu la kulmi karo walaac ahaan. sida ay caddeeyeen baadhayaal ku takhasusay dhinaca qaangaadhnimada, waxa ay leeyihiin xaaladda uu qofka bini'aadamka ahi galo waa ta ugu walaaca badan, sababta oo ah waxyaabaha ku soo kordhay qofka jidhkiisa waxay ku kalifayaan inuu wax badan ka walaac muujiyo wixii uu kala kulmi lahaa bulshada. bal aynu sidoo kale tusaale ahaan u yaro dul istaagno waxa uu qofku la kulmo marka ay timaado isbeddelka khibradeed iyo deegaaneed. ka soo qaad inaad tahay arday dugsi sare kaga soo baxay meel degme ah, taas oo aan lahayn wax jaamacada. waxaad u baahanaysaa inaad jaamacad raadiso, una raadiso meel ka baxsan deegaankaaga. waxaad walaac daran kala kulmaysaa natiijada ka soo bixi karta deegaanka kugu cusub iyo khibradda aqooneed ee kugu cusub, adigoo isweydiinaya su'aalahan: armaad la qabsan weydaa duruusta jaamacadda? sidoo kale, armaad deegaanka cusub lagugu dhibaateeyaa? cuntadiisa fahmi weydaa? waxaa mararka qaar laga yaabaa inaad jaamacadda dib u dhigto walaac dartiis. haddaba goormo ayaa walaaca loo aqoonsan karaa cillad ama disorder? sida ay qabaan ama ay qoraan ururka cilminafsiga Maraykanka American Psychology Association, waxa ay leeyihiin walaaca waxa cillad loo aqoonsan karaa marka uu qofku shayga uu ka walaacsan yahay ka walaac muujiyo muddo 6 bilood ah, isla markaana maalin kasta 1 saac ka walaaco, ama sababta walaac kiciyuhu ay ka yaraato natiijada ka dhalata. saamaynta taban ee uu walaacu ku yeesho qofka bulsho ahaan, jidh ahaan iyo nafsad ahaanba. haddii aynu jalleecno saamaynta walaacu ku yeesho qofka bulsho ahaan, wuxuu walaacu u horseedaa inuu ka go'o wax kasta oo uu qofku la wadaago bulshada, sida waxbarashada, ciyaaraha iyo dabcan isdhexgalka bulsho ee dhinac kasta, iyadoo sababtu tahay inuu mar kasta ay isaga u muuqato natiijada taban amaba aan faa'iidada lahayn ee ka soo bixi karta dhaqdhaqaaqyada bulsho. saamaynta nafsadeed ee uu walaacu ku yeesho qofka kadib marka uu ka go'o bulshada iyo waxyaabaha uu la wadaagi lahaa, waxa uu galaa xaalad istakoorida. kuwaanina waxa ay horseedaan xanuuno nafsadeed sida niyadjabka iyo kelinimada. saamaynta jireed ee uu walaacu ku leeyahay qofka kadib marka uu qofku galo xaalad isfaquuq ah iyo fursi fara badan oo dhinacyada natiijada taban ee ka iman karta nolosha, waxay horseedaa in qofka hormoonadiisa si qaldan loogu soo daayiyo, taasina ay horseedo xanuuno fara badan oo dhinaca jidhka ah sida wadna xanuunka iyo dhiigkarka. sidii aad u maamuli kari lahayd xaaladda walaaca, waxaynu u kala qaadaynaa 2 qaybood: qayb feejignaan ah iyo qayb la tacaalida. qaybta feejignaanta ah, maadaama walaacu ku yimaado isbeddelka xaalad nololeed ee qof, waxaa kula gudboon inaad wax badan u soo jeedid sidii aad u heli karto la tacaalid sax ah iyo habmaamul macquul ah. 1. ku xidhnow rabbiga, taladana u dhiibo adiga oo iskudayga samaynaya. 2. hagaaji meerta nololeedkaaga sida hurdadaada iyo cuntadaada. haddaba sidee baad ula tacaali kartaa walaaca? 1. tuko salaad mar kastoo aad gasho xaalad walaaca. 2. jeedi fikirkaaga kana jeedi wixii uu kaaga kacayay walaacu, maxaa yeelay maskaxdu waxay mar kasta rabtaa inay wixii soo eegto si ay u xalliso. tusaale ahaan, haddii uu kaaga kacayo alamintada, u beddel wax akhris. 3. la wadaag xaaladaada ciddii aad u malaynayso inay wax ka qaban karto, isla markaana aad u aragto inay sir tahay. 4. ka fogow waxyaabaha xaaladda kugu sii kicinaya laakiin maskaxdaadu rabto inay isku ilowsiiso xaaladda, sida sigaarka, kafayga iyo khamriga.